إنا لله وإنا إليه راجعون. إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى. إلهي هو نحرسته wiilkayni Farxaan Maxamuud Aadan oo loo yaqaan Farxaan Qaroole sareeyo guute Farxaan Maxamuud Aadan waxa uu dhintay saakay asagoo ku jiro howlgal oo uga dul qaadayay cadawgii ku habsaday ummadan Soomaaliyeed muddada dheer ayuu ku geeriyooday. kol haddii aad dagaal gelaysana waa la geeriyoonayaa. qofku markuu qora qaado dagaal aado wuxuu ku talagalay inuu dhimo karo. marka waxaan leenahay taliyihii booliiska Soomaaliyeed oo garabkayga taagan iyo wasiirka amniga iyo dhammaan booliiska Soomaaliyeed waan isaga tacsiyeenaynaa runtii geeridaas nagu timid saakay walaalkayna ku timid naxdinta le. waxaan sidaas la mid uga tacsiyeenaynaa ehelkii iyo qaraabadii iyo guud ahaan asxaabtiisii. waxaan leenahay Farxaan ma dhiman maxaa yeelay qofku asigoo naftiisa difaacayo asigoo dadkiisa difaacayo marka uu dhinto waa shahiid. marka waxaan leenahay Ilaahay jannatul firdaws ha geeyo. sida uu ka dhawaajinayo wasiirka shalay nabadoon qaali ah ayaa sidaas oo kale iyo dad badan. marka waa gara kartiin shabaab dadkii nolosha u diideen. marka noloshaas ay ummadda u diideen ayay waxay rabaan inay dadka ku gumeystaan. qofka marka aad ceelka ka gubto oo aad ceelka nolosha u diido oo aad caruurta aad ka disho oo aad beeraha ka gubto ma aqaan qofkaasi wuxuu sugaayo. marka dadka iska ma kicina waa la kiciyay. shabaab dadka waa la noolaayeen waana la isku dhex noolaa. laakiin hadda waxa gaarsiiyay inay shacabku kacaan shabaab asiga gaarsiiyay. marka cid kasta oo u gurmanayso oo shacabka masaakiinta badbaadadiisa ka qayb qaadanayso waxa waaye hadduu dhintana khasaare ma qabiyo. sariirta korkeeda kuma dhiman waa geesi dhinto waaye. runtii waxaan leenahay Ilaahay jannadii ha geeyo. inta maaragtay noolna waxa sugayso hawsha Farxaan oo ku dhintaa sugayso. haddii Ilaahay yiraahdo diyaar ayaanan u wadanahay kulligeynba inaan ku wada shahiidno annagoo halkan ugu jirno inaan dadkayna ka xoreyno cadawgan dul degay ee ku habsaday ee biragaatada ah. lama dhihi karo waxay shalay ay sheega jireen mabaadi'da ideolojiya aqoonta ay sheega jireen wax ka jira ma jiraan. maxaa yeelay islaamkeena wuxuu leeyahay man salima almuslimuuna min lisaanihi wa yadihi. qofka muslimka ah ee muslimka xalaasha ah waa in gacantiisa afkiisa laga nabad galaa. laakiin niman gacantiisa afkiisa laga nabad galaynin laguma sheegi karo muslim xalaal ah. على كل حال آيات كلنا وحيلات هاي ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. قف مسلم ومؤمن صلاة سود كذي أي دلايان مركزي كله وأكو جنة تجينا حاجة كسؤال كان وحاس خوارج لقن كذا وايه مركز هذا النجوم الرئيسة إلا يا صحابتي سوجوجين أنت سنوال الدلاي وإحنا ويدلايين. مركز على كل حال وحن لنا هاي شعب الصومالي واقعين يسمى فريسنين إلا إسكتول قادان خوارج ثاني hantidoodii iyo naftoodiiba ku xad gudbayso. labada shay oo la difaacdana islaamkeenu wuxuu ilaaliyaa kuliyatul khamsa waa hawaay nafta kamida maalka kamida ardayga kamida intana waa ku tumanayaan. waxaa yeelay ilmo yararo masaakiin ah oo cid ay dambi ka galan jirin cid gubayso dilayso iyo raashin meel loo wado masaakiin raashin ay wataan cid gubayso maxay taa waxay umada soo reebayso ma dhihi kana. marka dadkaas dadkay u maqan yihiin laakiin dadkay ku maqan yihiin aan leenahay. marka dadku waa kaceen yaan salka dhulka la dhigin ilaa shabaab meel ay ku nool intayba joogaan. haddii Ilaahay yiraahdo waxaa nasiib darro ah buuraha galgalo niman joogo inay dadka halkan joogaan ay baad ka qaadanayaan ee halka intay shilamaad ka qaadaan ay buurti galgalo ay geynayaan baad ay geynayaan shacabka Soomaaliyeed. waa nasiib darro taas ayada ana haddii Ilaahay yiraahdo ninka shilin ku bixiya wuxuu la mid yahay ninka xabadda ku dilaayo shacabka uu la mid yahay. marka cid shilin ku bixinaysana waa la xisaabtami doonaa haddii Ilaahay yiraahdo. maanta tacsiye aaday laakiin runtii waxaan qaadayo waxyaabo ay ku kacayaan qaadayso. marka Allah u naxariisto walaalkayna General Farxaan insha Allah intuu ka dhintana sabir iyo Allah ka siiyaan leena.